You could try to turn off the sun. I'm still gonna shine away, yeah, and tell everyone. Hi guys, welcome back to my channel. walaalkiina idin leh soo dhawaada. fadlan haddii aad ku cusub tahay meesha subscribe saar. haddii aad horay u saartay mahadsanid. like, share, comment intaba waa xaggaaga. maanta iyo casharkeena ama barnaamijkeena muxuu ku saabsan yahay? waxaan la magac baxay arrimaha khiyaanada. sidee ugu ogaadaa khiyaanada? ayaan rabaa inaan arrimaha keena khiyaanada. dabcan way fahantaa filaya. arrimaha khiyaanada keena ayaan rabaa maanta inaan video kaga hadlo. inuu taagan yahay horena waad u maqasheen channelkan wuxuu u taagan yahay arrimo badan. stopping okay. channelkan wuxuu u taagan yahay tala bixin, sheekooyin iyo maanta wax ka ogow ama wax ka baro khiyaanooyinka jacaylka. haddii aad diyaar tahay aniguna diyaar ayaan ahay. ha ku sameynin sidan gabar walaashaa, hana ku sameynin sidan wiil walaalkaa. haddii aad jecesha sidan inaad u noolaatid farxad weliga uusan nafsi kugu dhicin, noqo qof qadariya aadanaha ku xiriira. sababtoo ah aadanaha kugu xiriira haddii aad qadarisid ogow adigana waa lagu qadarinayaa. aan u gudagalo barnaamijkayga yaanan ku dheeraan videogan. ma rabo inaad ku caajistid, mana rabo in aad adiga channelkayga aad nacdo. waxaan jeclaha waqti walbo inaad ijeclaato anin aan ku jeclaado. midda koowaad haddii aan keeno jacaylka kow haddaba soconin gabar aana ku jecleen. gabar haddaysa ku jecleen oo aad daba kacdid aad isku kala dhigtid adiga ayaa ku go-wiilow. waa ku go-da. sababtoo ah gabadha haddii aysan ku jecleen waxay kuula dhaqmaysaa si khayrul caadi aan ahayn. waxaa kaa lumaya sharaftaadii, waxay nacaysaa wejigaaga, waad ku khasaaraysaa halkaas. haddaba kicin gabar aana ku jecleen. sidaas oo kale waxyaabaha khiyaanada keeno taas ayaa ka mid ah. sababtoo ah gabar haddii aad daba kacdid oo aad aysan ku jecleen waxay kuma soo jawaabayso, kuma soo qaabilayso, kuma soo qadarinayso. waa khiyaano. sababtoo adiga waxay kuu tahay khiyaano. haddii beri kamaal ninka ay jecleed ee hesho ama ninka ay jecleed ee ayadana u ordaysay way guulaysatay, way guursatay, adigana meeshaas waxaa ku qiyaamay. waxayna ka mid tahay khiyaanada jacaylka. jacaylka waxa khiyaanadiisu ay tahay waa midaas. gabadhuna sidoo kale ay ayadana sameynaysaa. wiil aana jecleen ayay daba kacaysaa, ay ka daba calcalaysaa, kadib wuu ka danaysanayaa ama wuu ka guursanayaa. kadib ayadana waxay u haystaa inuu jacayl haysta ninka qiyaamay. ninka kuma qiyaamay ee waxaa ku qiyaamay jacaylka. waayo jacaylka lama daba socdo. jacayl martaa inaad ka guulaysatid isku dhib calafka, aamin calafka, daba soco calafka, ku dayo calafka, waad guulaysanaysaa. sidan ayaad u faraxsanaanaysaa. waxaad noqonaysaa sidan, waxaad sii noqonaysaa sidan. fadlan waad fahantaa filaya. wax kaloo khiyaana jacaylka khiyaanadiisu ay tahay ayaan kuu sheegayaa. qof ayaad muddo wada socoteen hooyo ama aabbo ayaa labada qof isla socday. mid ka mid a gabadha ayaa waxa uu imaanaya waalidiinteeda, waxaana soo doonanay wiil adeer uu u yahay ama waa wiil yurub ka imaaday. kadibna waalidiinta ma diidi karaan, waayo waxay u haystahay mid waalidiinta oo keliya ay u joogtay. kadib waxay rabaan ka samaysanayaan gabadhana waxaa lagu qasbayaa wiilkii yurub ka imaaday ama wiilkii soo doontay. meeshaasna waxaa khadka ka baxay jacaylkii wiilka la socday. wiilkuu isku dhiibay jacaylka, balse ma oga inuu qiyaamayo jacaylka. sidaasna waxaa kugu dhaafay khiyaanada. waxaan kugu dhacday khiyaanada jacaylka ee kuma qiyaamin gabadha. taasna waa mid labaad. gabadha iyo wiilka oo isla wada socdo oo muddo isla sheekaysanayay ayaa waxaa dhici karto wiilka in uu helo waxyaabo qaldan. sababtoo ah waxyaabaha qaldan waxaa ka mid ah gabadha wuxuu uu ka doonayayba inuu ka helo ama uu ku fardi baxo ama wax yar adi shaydaan uu soo dhex galo. wiilkii gabadhana ee halkaas iskaga imaadaan waxay ay rabaan inay samaystaan. kadibna jacaylka ayaa wuxuu sameynayaa khiyaano, wuxuuna ku nacsiinayaa wiilka. kadibna wiilka halkaas ayuu ka boodayaa
waayo wuxuu aaminayaa sida asiga ugu soo dhawaatay inaad nin walba ugu dhawaanaysid. halkaasna waxaa kugu qiyaaman jacaylkii, kuma qiyaamin wiilka, kumana qiyaamin adiga, ismaana qiyaamin, ee waxaa ku qiyaaman jacaylka. ma rabtaa inaad ka guulaysatid? la soco fiideoga soo socdo iyo arrimaha sida loogu guulaystaa. fadlan subscribe saar, waayo subscribe markaad saaratid iyo gambaleelka aad furatid waxaad la soconaysaa fiideo walbo adiga ku anfaca. waxaan rajaynayaa inaad fiideogan wax badan ka faa'iidid. haddii aad wax ka faa'iidid ana waxay tahay farxad. haddii uu fiideoga ku qanciyane la wadaag asxaabtaada. commentigana waxaad igu soo dhiibtaa wax walbo fikradaada ah si aan aniga u noqdo qof aad dhiirigelisay sida aan u noqdo, kadibna aan fiideoyo badan aan usoo sameeyo oo aan ka qayb qaato bulshada wanaagooda. waad mahadsantihiin oo walaalkiinu idin leh. Pull me back once more when I'm opening the door.